السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، مسألة كسابسا علنك انت أنيقا أمان رميسنا أمان فهمسنا وإنو يهي علامة أمد ولادها برتلمامات أمد ولادها يوي odayaalkii abaabulay qarannimada Soomaali ayaana ikhtiraaxiisa iyo tala bixintiisa lahaa sida uu hadda yahay ama midabka uu leeyahay ayayna u garteen. kadibna ummadiina isku raacday, isagiina sidii buu u noqday bartilmaamee dalku leeyahay. sidaasuu haddana baaqi ku yahay. xagga qiimaynta iyo tixgelinta waa mudan yahay, maadaama uu yahay calaamo guud oo ummaddii kulmisa. in la qiimeeyo la tixgeliyo waa uu mudan yahay. tixgelintiisa iyo qiimayntiisana mid cibaado shaqo kule maaha. looma tukado, looma soomo. wax intaa calanka uu jiray ansdhaana waxa kani taqarub alla loogu dhowaanayaa loola dan leeyahay maanu aragee waxay ahayd calaamad dalku leeyahay oo dalka lagu aqoonsado, dadkuna isla gartay. odayaal ummadda ka mid oo hormuud ahaa xilligoodiina ay soo jeediyeen. intaa unbuu ahaa. kolka wa min annaasi man yajcalu alxabba qubba, dad baa jira xabad masagaa qubad la ekaysiinaya. sidaa daraaddeed wixii siyaadaad ee lagu daray oo la yidhi waa daaquud oo waa la caabudiyey, waxbaa la yeelay, waxaan horaan lahaa mas'aladaas marjixa loo sameeyo. dalku culumuu leeyahay, cuqaalna waa leeyahay, waxgaradna waa leeyahay, waayeelna waa leeyahay, dhallinyarona waa leeyahay, haweenna waa leeyahay. wixii dal uu leeyahay oo dhan baa dalku leeyahay. marka masaladii marjixiyaha loo sameeyo, haddii sharci laga hadlaayo waa in culammada dalku uu leeyahay la ururiyo, mawduucana la hordhigo, iyaguna ay ka baaraan degaan oy qaadaa dhigaan go-aan ku salaysan diin oo adilo leh. xadiis iyo qur-aanna ay soo saaraan oy ku xuskiyaan. markaana masaladii masale ay noqoto diini ah. laakiin in wixii lagu fuudaado oo marka wixii la doonaba layska yidhaaho, taasi maya. masaladii marjixiyaha loo sameeyo, culammada dalka ha la kulmiyo, ha la hordhiga mawduucan calanka, tala ka soo jeediya ha la yidhaaho, iyaga ha ka munaaqashadoono, bal wixii mafsado ku jira iyo wuxuu masaalix leeyahay iyo wixii waddanka uu u hayo iyo meeshuu kaga beegan yahay qaranka, iyaga intay ka munaaqashadaan ay qaadaa dhigaan go-aana ka saasaareeno. sidaasaan ku talin lahaa. وبالله توفيق.
isla mas'alada calanka sheekh haddii jaanib kale laga eego waxaad arkaysaa calanka markii laga hadlayo weynayntiisa ama qadarintiisa iyo ixtiraamkiisa in mararka qaarkood aad isleedahay sida calankan looga murugoonayo ama looga tiiraanyoonayo ama looga fikirayo loogama fikira dhiigga muslimiinta ama loogama fikira diinta ilaahay calaa sabiili lmithaal tusaale haddaan soo qaadanno calanka soomaaliya waxaa lagu gubay gobollada soomaalida ka mid a cadho loo qabo darteed qolyaha inta calanka qaadeen gubay kuwaa gubay ee calanka u cadhaysan waxay u arkeen madarrada ugu weyn ee ku dhacday iyagay dhibka soo gaadhay inuu calanku sabab yahay calankii kula duldhaceen qolyo ka soo horjeedana waxay u arkeen muqadasaadkoodii iyo sharaftoodii iyo xurmadii ay lahaayeen in meel looga dhacay waxay sameeyeen mudaaharaad way kaceen way cadhoodeen way hadleen cuqaashoodii iyo culimmadoodii iyaguna way hadleen iyagoo difaacaya calanka waxaa loo sameeyey muusig la yidhaahdo muusikada calanka oo khaas u ah oo lagu weyneeyo oo lagu qadariyo oo loo qaado mararka qaarkood miyaan la dhihi karin aayadda ilaah uu leeyahay wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibbuunahum ka xubbi illaah calankii heerka ay gaadhsiiyeen jacaylka iyo qadarinta iyo ay gaadheen miyaan la dhihi karin nooc maquluwi ayaa ku jira miyaan la dhihi karinoo marka ay ahayd dadku inaysan ilaa heerkaa ayna gaadhsiiyeen calanka meesha kuwo kalena ay ka gaabiyeen oo ayagu naftooduna ay ku xadgudbeen oo intay calankii qaadeen ay calan kale meeshii ku bedeleenoo madow bismi illaahi araxmaani araxiim wabacdu qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uxudun jabalun yuxibunaa wa nuxibuh uxud waa buur ku taal madiina almunawara markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay uxud waa jabal aan jecel lahoona jecel maadaama uu madiina almunawara ku yaal calaamooyinkii waaweynaa ee madiina almunawarana uu ka mid yahay uxudun jabalun yuxibunaa wa nuxibuhu baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed calanka ummaddu ay calaamo iyo bartilmaameed ka dhigatay ugana dhigatay midnimadeeda lana qaatay markii gobonnimada la qaatay waddankoo kala gogo'naa oo gumaysasa xariiriyey gabalba meel geeyey markii rabbi alla ka dulqaaday oo gobolladii waddanka ay isu yimaadeen bay calankan samaysteen oo tilmaamaya midnimada waddanka uu midoobay midnimadaa waddanka midoobay baa calanka laguna aqoonsaday laguna tixgel saasaa loo tixgeliyey oo la fiiriyey marka bartilmaameed waddanka inuu u yaho calaamo u yahay maahee wax calanka caabuda oo shacaa'irtii islaamka ee ilaahay noo jideeyey nabigana ina baray wax ka mida salaadii sakadii soonkii xajkii looma sameeyo calanka shaqana kuma leh laakiin waa shaciira ka mid ah ama calaamo ka mid a calaamo waddanka uu leeyahay oo lagu aqoonsaday gumaystihii waddanka qaybiyee kala googooyey markuu ka dulkacay waddankuna uu madax bannaanaaday madax bannaanidaa waddanka uu madax bannaanaaday baa calanka lagu saleeyey iyadii baana looga dhigay mana aha wax soomaali u gaara waa waxa dunida camima oo dal ka mida dalalka adduunka muslim iyo gaalatoona oon calan iyo calaamo lahayni male kolka sidaa daraaddeed wax dhibaato calanka uu dalka ku hayaana male
tixgelintiisa iyo qiimayntiisana wax dhibaato ah oo ay leedahay male. hadday markaa ummadda waxgaradkeeda ahluxalli walcaqdi baa jira wax la yihaa, hadday culammada iyo nabadoonnada iyo duubabka iyo cuqaasha iyo dadka noocaasa intay kulmaan, haddii intay kulmaan ay wax talaa ka soo jeediyaan arkideeday leedahay. laakiin ku fuudaashada hadda calanka ay dad dhallinyaro ah isaga fuudaanayaan kana fadwo bixinayaan leeyihiinna waa daaquud iyo waxaasuu yahay, waxaanu arkaa inay tahay wax saflaboodnimo ah meeshan aan ku jirin loona baahnayn. ee hadday tala jirto hala kulmiyo ahluxalli walcaqdigii dalka, culammadii iyo nabadoonnadii ha kulmeen, hana ka munaaqashoodeen, talana ha ka soo jeediyeen. wabilaahi towfiiq. masalada ku lamaanay kale waxaa waye masalada weynaynta, masalada in loo istaago ama la aamuso waa masala min baabi tacdiim ah, weynayn. masaa'ilka weynayntu iyo tacdiimintu ma wada aha masaa'il cibaado ah. waxay ku xiran tahay haddaba maqsadka tacdiiminta iyo weynaynta bay ku xiran tahay. way dhici kartaa in weynayntaa la weyneynayo min jinsi alcaadaad iyo dadka wixii la fiican markii qof intuu yimaado akhyaara oo la qadarinayo loo istaago, isagu inuu jeclaysto uma bannaana, laakiin waa loo istaagi karaa si loo soo dhoweeyo. qofka ixtiraam iyo taqdiiriya aad ku soo dhoweynaysaay made weynayn cibaado ah ma aha. marka ixtiraamka iyo weynaynta waxay farac ka tahay asal ahaan jacaylka aad jeceshahay iyo qiimaha u agtaada keliya. haddaba weynayntu hadday weynayn cibaadaad ay gasho, haddee cibaadaad bay geli. hadday weynayn aan cibaadaad ahayn oo mararka qaarkood calaamaad walaa walbaraa kula gashana, haddaba nooca walaa walbaraaga xukunkiisii uu lahaabay qaadan ee khaldan, sidii tii qabaa'ilka iyo qoysaska iyo magaalooyinka iyo kooxaha iyo kaleetay noqon. dadku ugaasiyay leeyihiin, ugaasaa loo istaagaa. madax bay leeyihiin, markay soo galaan baa loo istaagaa weynayn darteed. asalkuna waa curfi iyo caado iyo qadarin bay ka dhigan tahay, ma aha cibaadaad. marka mas'alada tacdiimka iyo weynayntu cibaadaadna way noqotaa, caadaad iyo ixtiraamna way noqotaa. asalkeedana waxay ka turjuntaa waxaanaad weynaynaysaay qalbigaagu makaano iyo darajo iyo qiimo ku leh. taasna masalada kalean raba inaan idhaahdo, iyadana masaladan la xiriirta saddexaad ee murakabka ka dhigaysa. masalada afraad ee la xiriirtahay waa masalatu tashabuh, waa masalada ugu dhow ee hadda aan isleeyahay qaabka calamada loogu istaago ama heestooda marka la qaadaya kama hadlahaya nuxurka heestu iyo miraheedu muxuu ka kooban yahay kama hadlayo, oo calan gaar haddaanu kama hadlayo. laakiin in la istaago, la aamuso, hadday bannaanayd dee dadka in lagu qasmo ma bannaana oo dembi laga dhiga haddaad dhaqaaqdo ama aad fadhiisata dembi laga dhigay oo lagu qasbo iyo qaab gaar ahoo loo weyneeyo waa wax dowladihii galbeedka inoo yimid ay ka tageen. masaa'ilka tashabuhuna qaar dembigaana waa jiraan, qaar ay dhici karta gaalnimo inay gaadhaanna way jiraan, oo xukun waaxid ma wada laha. oo ninkii dhar gaalada oo kaleeto u xirta xadiidka waman tashabaha biqowmin fa huwa minhumna haddii uu ansaxo, ka mid noqonshahoodaasi dee waxa uu isaga shabahay buu ka mid noqday weeye, mar walba wuu gaaloobay ma aha. cinda ahlilcilmi masaa'il tashabuhna masaa'il kutub laga qorayo axkaam kala duwan leh wey. masalada tashabuha waxaa raaca mas'alo kale. waxyaabaha tashabuhi
zamankaa saameeya wax mar tashabuh ahaa baa markuu faafo dadkuna wada sameeyaan hadduu jinsiga caadaadka iska noqdaaye xaddu tashabuha uu ka baxa waxaa la soo martay xilli sarwaalka waa tashabuh bilkufaar la yidhaahdo taygu waa tashabuh bilkufaar la yidhaahdo oo marba iyaga keliya ay caan ku ahaayeen bay soo martay markay ka baxday faraha dadkoo dhanna qaateen dadkoo dhanna wada xirteenna xaddii xukunkii tashabuhuu ka baxay oo tashabuh waad isu ekaysiisay waa wax iyaga uu gaaraad xiratay wax dadku wada xirto oo u siman carabtuba markii nabig alay slam iyo saxaabadu iyo nimankii qoraysh ahaa ee gaalada ahaaba qamiis waa la wada xiran jiray cimaamad waa la wada xiran jiray wax isku midaa la sameeyey ama isku midaa la xirtay hadiya ka hor tashabuh maaha zamanku wax waqti tashabuha waqtina aan ahayn baa jira sida makaanka iyo goobta la joogo wax goobaha qaarkood tashabuha gooban aan tashabuh ahayn baa jira wax noocyo badan oo noocyo qaybo ka mida tashabuhtay qaybna aan ahayn baa jirta marka mas'alada waa mas'alo baadhi laga hadli karo wax laga dhihi karo markii hore hadduu tashabuh ahayd markan dambe ee dadkii oo dhan wada sameeyey asalkeedu meeluna ka soo jeedina la halmaamay weliba tashabuhii bay baaqi ku noqon oo axkaamtiisii kala duwaneed mid ay qaadataba mise way ka bixi waa masale iska ijtihaadiyaho lagu kala duwanaan karo intaa kadib masalada calanka salaanta calanka iyo istaagiisu fuqahada zamaanku way isku khilaafeen qorana waxay ka arkeen inay weynayn ilaahay khayrkii la weynaynayo oo qismu jinsul cibaadaad ah ay tahay bay ka arkeen qorana waxay ka arkeen tashabuh bilkufaari inuu yahay oo baabu taxriim bay geliyeen kuwa kale waxay geliyeen baab ay dhici karto inuu qofku ku gaaloobo kuwana waxay geliyeen min baab cibaadaad oo aan tashabuhna ahayna xaddii tashabuhana ka baxay haddii weydiiyay qaabka loo istaagayo ama waxaa la qaadayo maxduur sharci oo kale xaaraan oo sharci oo khaldan ku jirana sideeda loo saxo laakiin iyada inteeda ahaan ay bannaan tahay waa fataawadii majaamicdii iyo hay-adka fiqigii ay ku kala duwanaayeen masale waa masale iska ijtihaadi ah aniga waxay la tahay masaa'il hadda laga yaaba dee goobaha iyo xilliyada kala duwan ay ku soo beeganto ama shakhsiyaadku qaabkay u dhaqmayaan oo kaleeto inay kala yeelato axkaam kala duwan intaasaan kaga baxaya masaladaasina iyadaana ugu dambaysa xalqadeeni 65aad intaan xalqada xigtay 66 isugu imanayno waxaan kaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال إلهي وحورنا هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد أدون محل قرب إلهي كل إنه عابده وإياك نستعين إلهي نوح على قرب عابدك إنه كالميه أو عاوي أو واحتره استعانة إيا غوث إيا قرقار إيا قول الله يكون حرام طيب ولعبدي ما سأل تنوي مركة أدونك يقول وحي ويديستيبوا ليهاي وام إياك نعبد وإياك نستعين الله وذانك عابدينا وحنا كادل بيننا وكادوني إن إلهنا قرقاتنا قرب قبطه وإذن يليوي هذا توستان وعبادة طبعا الله تمادا لكن مشكلته وحاول إن ثلاثنا كنت إياك نعبد مركات كبح لنا القبر قشوف أو ترى أولياء الله أذيك مشكلة هالكاسيكات تاجد بين بات سوشك تمرك إياك بين تا ملاك كربة يقول هذا أفقر مونيد لأن هو لوجي واحد وضه إياك نعبد الله وكلي أنك عابد معمولك إن لجوهر مريع عاملك سبحان ترى هذا المكان ملها عربية اللقبين زين حصري يا قصري بفائدية نعبد صوف فعل كما إياك معوية ومفعول له مريع حقين لقي ومنفصلة هرال لقي إياك نعبد كليجا أمباوي كده قلت أحد كلو إنه عابد إنه متشر أديك أنك عابد ما هي العبادة؟ العبادة ونهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل فإن كان لله فهو توحيد وإن كان لغيره فهو شرك وكفر اسبهام بهن ماش أضم بيصوت الله تماد ويا أحد على الله تماد أحد كادوا الله يهينا وتوحيد إيمان هدو إله غير كي يهينا وشرك وكفر علن كالصومالي إن له اكتوا قال بدين كلا بحيا يحكي الإسكدة نقص آموسا كورم
been baa laydin sheegayaa moogta anagu laakiin runta idin sheegaya wax kale iska da calankaas shanta xidigood leh ee buluuga ah haddaad u hogataan muslimnimo tihiin run waa in runta laysu sheego hogashiyaa iska leh allah baa iska leh asagoo maalin la dejiyey qoryoolay 86 anoo socdeentaan maray waa laygu xidha xilliyo waxaa la jamaka la waxayna dad istaagi weydo hilfaha la soo qaaday annagoo xiro ordayno tafsiir meel ka socdo ku ordayna ayaa wixii naga raacay alla ogyahay marka waxa weeye iska ilaaliya shuruuc gooni uu leeyahay qawaaniin buu leeyahay ninka ku khaldama xad la mariyo uu leeyahay xabsi buu leeyahay wuxuu leeyahay qaaraamaad lagu saarayo waa diin madax bannaan oo diinul kufri wa taaquut ah diinu dimuqraadiya ah haddaad u hogataan ood u foorarsataan sida alla loogu hogtahee diinka bannaanka ka tin iska ogaada iska ilaali iyaaka nacbudu faham bay kaaga baahan tahay iyaaka nacbudu faham bay kaaga baahan tahay in usbuuc la akhriyay iyada aayadda kaliya la fasiray kaaga baahan tahay qoliyihii dhagax buur qolyaha garanaya bidixeeda fadhiye sheekh cabdiraxmaan guriye dhan tafsiir noo bilow bismillaahi araxmaan araxiim markuu konton cashir ka galay iskaga dareereen iskaga tageen bismillaahi araxmaan konton cashir konton fadhi geeloodu iyo cobole iska aadeen iyo falfal iyo halkaa u kala dhaqaaqay luu kala tag waxaa weeye aayad walba macnahay xumbaarsan tahay waa culus yahay faham diintu faham bay u baahan tahay sidana cali wuxuu yidhi ma aha diinku kitaabo badan la xambaaree waa faham qalbiga ilaahay kuu geliyo ood fahanto indhahana aad taagayso wax badan ma taraan laakiin wax lagu arko xaqa lagu arkay u baahan yihiin baatilka lagaga leexdo qanjir meeshaa ku wareegaya weye midka khamrada ku cabaayay adigu maxaa isdoonaysaa haddana indhaha xaq aadan ku arkayn ayib waxba hadda ayaana kusii mashquulay xilli kaloon baan jaanis weli doonaayo aan fiqigayga wato